madrasada Daalbiri oo kamid ah madrasadaha ku yaala magaalada Buuqoodle xarunta gobolka Cayn ayaa xafiid qalanjibina u qabatay arday dhameysatay Quraanka Kariimka ah. Dufadan maanta ka qalanjibisay madrasada Daalbiri ayaa ahayd dufadii afraad iyo shanaad. Tirada ardayda maanta ka qalanjibisay madrasada Daalbiri ayaa gaaraysa ilaa 20 arday. waxaa munaasabadii loo qabtay ardayda maanta ka qalanjibisay madrasada Daalbiri ayaa waxaa ka qayb galay oqaal waxgarad iyo waalidiinta ardayda maanta qalanjibinaysay iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Buuqoodle. munaasabadii ay ardayda ku qalanjibinaysay ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maamulka sare ee gacanta ku haya madrasada Daalbiri Sheekh Umar Cabdi Ibrahim Xasan oo isaguna faahfaahin ka bixiyay marxaladaha kala duwan ee soo martay madrasada Daalbiri. waalidiin waxgarad iyo oqaal ayaa halkaasi ka hadlay dhammaantoodna waxay u mahad celiyeen maamulka gacanta ku haya madrasada Daalbiri Sheekh Umar Cabdi Ibrahim Xasan iyo sidoo kale macallimiinta wax ka dhiga madrasada Daalbiri. ugu dambeyn waxaa halkaasi abaalmarinay sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha kala duwan aan ku soo kori karay magacyo kala duwan salaan kadib ilaahay aan mahadcelinayaa alxamdulilah rabbil caalamiin halkii oo qomaasaa ila wadaago madrasada Daalbiri waxaanu soo furnay 2013 garabarkiisii ayaanu soo furnay maanta ay tahay 25 abriil bisha afraad 2019 ilaahay taa soo furnay beer kala duwan ayay soo martay madrasadu hadda waxay maraysaa muasasa ay maraysaa waxaa sid madan islaamo kala duwan inay jiraan oo magaalada ka howlga waxaa sidoo kale maamulka ka maqan meesha macadka madrasada iyo macadka oo maaragtay isku dhafa ilaahi subxaana watacaala intaas oo dhan si guul leh mar walba loogu soo hogay haddana waxaan ka rajeynaynaa si khayr leh mar labaad waxaa dufcadan maanta ay tahay dufcadii afraad iyo shanaad oo ka kooban 20 arday aysan ahayn ardayda keliya halka ka muuqata ay badan yihiin marka waxaan insha Allah tacaala aan isku dayaynaa qodobka inaan u taagnaano jiilka dadka noo soo dhacaysa u soo gelin lahayn sida insha Allah tacaala bari ka maalin ay u noqon lahayn iyagoo kuwii dadka hanta dalka iyo dadka hanta insha Allah tacaala waxaa sid mudan oo iyadana maanta sid mudan inaan mar walba iska ogaano waalidka oo mar walba naga garab taagnaa inay ardaydu ay soo baxaan oo qofka hadduu leeyahay iska fadhiya ilmihiisu uu soo baxayaa laakiin qofka hadduusan iska fadhiya ilmihiisu ma soo baxayo waxaan ku taabaanayna insha Allah tacaala dufcada ku xigta ugu yaraan halka aan idinku dareen sanad walba ardayda baxda oo ka baxda madrasada iyo macadka labada qayboodba oo shahaadooyinka uga baxda qayb walba oo kamidana shahaadada gaarka ayuu leedahay qaybta insha Allah tacaala kuwa ku soo aadan waxaan rajeynayaa arday ugu badan inay noqoto arday ama 8 ilaa 7 meelaha aan ku qiyaasay weligii diiwaanka shanaada inay insha Allah tacaala ardayda marka bilood ay soo aadan insha Allah tacaala aan isla qaybsano waxaan aad ugu hambalyeeyaa ardayda maanta quraanka dhamaysatay iyadoo waalidkood baahan baan ku baraarujinayaa waxaa weeye maanta quraanka way dhamaysteen laakiin meesha ka socday weli maana gaarin haddaad nala sii garab gashaan oo ardayda halkaa fadhiya aad nala sii garab gashaan oo nala sii gacan qabataan marka ilmuhu wuu dhameeyey ayaa laga yaabaa inaad ardaygii iyo ilmihii iyo waalidkood u fadhiiso markasta Daalbiri iyo macallimiintiisa ayaan u mahadcelinaynaa ardayda wanaagsan ee qiimaha badan ay noo soo saareen marka labaad waxaan faraxa la qaybsanaynaa ardaydan waxaan leenahay hambalyo waa xaflad la yimaado oo lagu farxo xaflada ugu qiimaha badnayd wey waxaanan meesha ilaaweynaya inaan mahadcelino waxa weeye sharafta qiimaha badan bacda waxbarashada cuqaasha geesimada hooyooyinka bacda saxaafada iyo dhalinyarada dhammaantiin aad bay umahadsan tihiin qaabka fiican aad uga soo qayb qaadateen ardayda dhiirigeliyo runtii waxaan qof walba shaki kaga jirin dhiirigelintu waxay qayb weyn ka qaadataa ardayga moralkiisa iyo maskaxdiisa iyo inuu ardaygu waxa uu dhiganaya uu dareeyo oo ku farxo aad bay u qiimo badan tahay inaan mar walba ardaysa u dhiirigelino waxaan mar labaad u mahadcelinayaa ardaydii qiimaha badan ee quraanka dhameeyey ilaahay subxaana watacaala waxaan u weydiinaya inay noqdaan kuwa quraankooda naftooda iyo
يجيك بطاقة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الله حفظه يقوى كلمته له الطاعة ويستفاد الكوروتا دار أنظر من أجلنا وحامد الله يقول لبسه كما أنك عشان تنظر ومن الخلاف يقول الله وبرشد مدى مسؤول ومعطي الأمة والمعلومات يبدأ الله حتى هو يسرطها القرآن أكاد الذين الشرع الإسلام تبقى برشلونة كالإدارة حقيقة صوتها برشلونة وحاجات والشرع الإسلامية يقرأ الكلام الله وكسر له بس شيء الله سبحانه وتعالى ينصر بالشيء وهو رسول الله أبو رجل محمد ورسول كل عالم فوق الله كتابه الله وكان قانون من الله تعالى كتابه عسائر سيئاتك وغير النسي وحاولت علي أرضيع معلميك معمرياشا والديك تصور طبعي حولتك فيها يبيع لبران شريعة إسلامك ما تعرف اليهود اليوم انت كسر تعطينا انت علي انت كسر ليش بشيرة وحالي يعني الله يباركك الله يباركك الله يباركك الدراي علم اليقين الله ينفع قلبك معه الله ينفع معلمين ثاني أجل حساب إذا ما الله فكر وحده شديد والدين ثاني تعرف ما هو بقصائر يقول استقرار وحده بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة صفا كالكافرات غدا كالكافرات غدا سبح السماوات والأرض ورب المكان إنا نزلنا السماء الدنيا بزينة الحياة أحاسب الناس
الله يقولك الله وين المقرر قرآن ولا يتم براس وقت كان رايحين قوام وحاولوا على الكلمات يحاولوا والدينك مجموعة من الماء وبدأت الجواب عمير على سميسان جمعية أساس عتاب وحاولوا بشعر سلطان رسول الله عليه الصلاة والسلام قلت لا القرآن وإبليس انتهى يدرين دوامانك في عمل وسوء التاك ومشفى ومكر عمله إلا كيف دوام على شيء مكا وبشاره لو بشارين وإبليس صلى الله عليه وسلم عرضه مكا وحاولت لنا أكسي برسال كذلك عن برسال حروتي الوسيلة حول التوب وحاولوا بياتينها نوقع وإنهم صحيح إلهي إنه محمد وعندما هؤلاء وحاولين على سكتي تلقينا تعليم صار فرابط أما أمور تعلم أقرار المريد عما قميصت تلقي سكتي حاجب ده في الصومالي اللي قالوا نم قضي ولد بالقرمان وولد كيلو يقعنا موضوع في مليون من عمد من الفرابط مدرسة وعاودوا من كل يوم دمبسط توري له بور فيها وعيال سجوا صار تقرأ هدية مدرسة كل يوم بلا هدية أما هدية بور كذا إلى ما ينهي الموضوع كذا